كإنان توس وقلنا وحي رادان جيس أكس إنان حوغان سيفهنو انت حالي إنان وحكا لقدران ربا ديتنا aan isla aragno sida Brobis iyo barnaamijyadaas u shaqeeyaan. Okay, marka browserka aan furto baalka magaciisa aan ku qoranay VS Code-ka xalay kulli Babel-kaanan yani configuration-kiisi sameynay oo sidaan oo kale noo muuqday xalay markaan yani sameynay sidaan oo kale noo ahaa waxaan rabnaa marka waxaan rabaa inaan isla fahanno waxay yiraahdaan Babel-kaan horta si uu shaqeynaa waa aragnay laakiin waxaan rabnaa JSX caawa inaan isla fahmo iyo halka React ay ka soo galayso sheekadan. JSX wuxuu ahaa barnaamij magaciisa hore u jiray React intiisan jirin ka hor laakiin se React aad u soo shaac bixisay sababta uu soo shaac bixisay iyo qaabka ay asiga u hormarisay oo aad caan uga dhigtay yaan rabnaa caawa inaan si yani aan muxuu ahaay si la dareemi karo inaan hal mar idin la wadaagaan rabaa caawa insha Allah marka idinka dhan inaa wada dareemi kartaan rajayna markaas waa dhigi kartaan marka that's why React meeshan u soo gashay marka halkan waxa inoo yaalo waxay yiraahdaan Babel ilaahay kuma soo diiday waan sheegnay xalay wuxuu qabanayaa shaqadiisu ay tahay waa inuu yani kulli kuma laabanayo laakiin se shaqadiisu waan aragnay waxay qabanayso marka waxaan rabnaa caawa inaan isla aragno waxay yiraahdaan JSX iyo React halkii ka soo galayso marka halkan aan yani ku bilaabaya insha Allah xalay waxaan sameynay Babel waxaan ogeyn inay qabanayso iyo library-yadan kale markay isla shaqeeyaan shaqadii qabanayeen waxay ahayd inay JSX extension file inay u bedelaan JavaScript. Okay, shaqada noocaas ahayd halkaan oo kale markaan tagno kala soo qabo aan dhahno index.jsx file noocaas aan sameynay marka isla markiiba browserka baalka magaciisa editor-kana isticmaalayo kulli extensionadan oo theme-ka iconada waa meeshaan kala soo degay kulli taas marka markaan JSX extension-kaas qoro isla markiiba React logodooda la soo boodaya marka xagaa waxa waaye ayada aad suuq u soo gelisay macnaha oo aad u fududeysay magaciisi JSX marka okay kulli yarda waxaan fiirinaynaa marka inaan qori karno muxuu ahaaye JSX markaan qorno Babel waxaan ognahay inuu bedeli doono magaciisi JavaScript caadi ah marka hal mar const markaan qoro deetana waxaan dhigi doonaa kadibna waxaa leenahay element tusaale elementiga haddaad doonto function oo ha ahaado functionkaas laakiin wuxuu soo celin doonaa HTML. Okay, HTML tags wax noocaas oo kale taa laakiin JSX okay marka halkaan waxaan leenahay h1 soo xir halkaan markaa kadibna hello geli. Okay, intaana safe leeyahay deetana waxaa la sameynayay in halkaan la tago waxaa la dhahay clear then mbx. Okay, Babel then maxaa la dhahay كده فايل الشيء فايل كم يجي يسال الشيء JSX ديتنا بوزيشن كل جودي دونا مركي لو كمبايل كراي فايل كان اوكي مركال كان حالنا بيجز ابور فولدر اللي بيج معناها بيج اللي هذا ابور ام بيجز كاس ابور لنا اوكي marka shaqadii uu qabanaya deetana uu dhameystiray marka halkaan taa fiiriso wuxuu sameeyay folder oo pages la yiraahdo marka pages kan gudihiisa wuxuu soo dhaxgaliyay isla file-kii magaciisa laakiin extension-kiisa uu JavaScript ka leeyahay marka hadaan ku dhufano wuxuu halkan keeni doonaa waxa noocan ah oo kulli JavaScript caadi ah oo la fahmi karo ay u qoran tahay marka Babel halkan configuration ku leeyahay oo halkan macnaha waxa loo jeedaa meeshaan oo kale markaad fiiriso inta waxaan keenay create element halkan hadaad fiiriso muxuu ahaay wuxuu soo saaray waa create element macnaha marka create elementigan waxay qabanaysaa waxa waaye macnaha baalkan shaqadu qabanayo waxay tahay kulli documentiga oo magaciisa muxuu ah baalkan domka waxa ku jiro
create element document.create element wuu jira soo ma marka halkan waxaan document ya ka maqan hadaan browser ku run gareeyo waxa la dhihi doonaa function kan ma jira amal wax noocaas u dhihi doonaa marka si taas aysan u dhicin halkan aan tagayna waxaan leenahay inta document.create element markaas kadib saas ayuu shaqadiisu u qaban doonaa macnaha marka halkan hal mar ku laabto raado run then haddaan ku laabto hadda wuxuu sameeyey document.create element deetana muxuu ahaaye saddex muxuu geli saddex yani parameter ama saddex argument waxa sida u dhigi kartaa aad taqaan marka saddexdaas shay uu geli macnaha marka saddexdan shay halkee ka timid waxay ka timid halkan markii la yiraahdo html balkan muxuu ahaaye okay inta horta sideedu u soo celiyay intaan hadda fiiriso intaan waa iska javascript oo caadi ah asiga focusku wuxuu saari doonaa meel walba uu ku arko JSX wuxuu bedeli doonaa javascript caadi ah asigoo ku base gareenayo balkan intaan ku soo sheegnay functionkan halkan aan ku soo sheegnay marka asiga simple wuxuu ku xisaabtamaa saddex shay okay saddex shay uu ku xisaabtamaa ama documentiga caadiga oo javascript HTML ka wuxuu ka kooban yahay saddex shay horta wuxuu ka kooban yahay tag name-ka laba wuxuu kulu leeyahay jaildina uu leeyahay oo gudaha wuxuu ku qaatay jaildiga loo yaqaan Soomaa ama children Soomaa saas iyo midka saddexaad oo ah halkan wuxuu ku qaadanaa halkan style iyo waxyaabo fara badan ay jireen Soomaa iyo ID iyo muxuu ahaa glass iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan ay jireen on click wax saas oo kale inay jireen aan reply marka kuwaas saddexda shay oo asiga ku xisaabtamaya qodobkaas meelaysan tag name-ka ilaahay kuma ismadiiday jaildiga iyo wuxuu ka kooban yahay magaciisi iyo properties-ka ama attributes-ka okay marka asiga wax kale ma sameeynayo marka shaqadu qabanayo marka maxay tahay kullama uu arkaba tag haduu arko oo intaas JSX ah wuxuu u bedeli doonaa saddex shay horta wuxuu soo qaadan doonaa muxuu ahaaye wuxuu soo qaadan doonaa tag name-ka wuxuu dhihi doonaa tag name-ka waa h1 deetana uu dhihi doonaa attribute halkan ku jira maya hadirtan soo maaha deetana asiga wuxuu iska dhihi doonaa null symbol ilaan wax attribute dadku ma jiro laakiin haddaan glass meeshan aan keeno kale kaba soo qabo inta waxaan dhahay glass name kulay tan HTML-ki waa taqaanaa soo maaha nidaamkaasaan ku wada macnaha inaan si dheerdheerayaan diidana marka kan oo kale sidaan uu soo qaban doonaa halkan uu la imaan doonaa wuxuu dhihi doonaa okay class name object noocaas oo kale taa halkan uu object ka sameyn doonaa options la yiraahdo class name deetana wuxuu gelin doonaa wixii halkaas ku qoran halkan oo kale class name ka CSS kaaga tusaale haduu yahay nav bar amal haduu yahay kala soo qaad saas oo kale haduu yahay halkan wuxuu dhihi doonaa kelimada nav bar ka halkan keeni doonaa macnaha qodobka saddexaad oo asina rabo waxa waaye children gudahan wax ku jiro children ka marka hal xabo iyo laba xabo iyo 30 xabo iyo balaayiin noqon karta marka halkan marka array noqon doonta array of children ismacna halkan wixii children ah ayaa halkan la keeni doona okay qodobkaas meelaysan marka kullama uu arko magaciisi bahalka uu arko JSX markuu arkaba ama HTML amal wax ah oo sidaan oo kale ama u qoran markuu arkaba wuxuu sameyn doonaa asigoo isticmaalayo functionkan halkan uu ku haysto asigoo isticmaalayo functionkan wuxuu u yeeli doonaa saddex parameter uu siinaa marka maxay noqon doontaa sidaan noqon macnaha okay sidaan noqon doontaa wuxuu dhihi doonaa halkan tag name soo jeedaan halkan wuxuu keeni doonaa probes ama ayraade attributes-ki oo kulli style-ki waxa dhan marka options aan iska leenahay kulli options ka bad deetana halkan wuxuu keeni doonaa midka ugu dambeeyo noqon children okay kullama aad sameysid uu arkaba JSX sempre file-ka magaciisi function-kan ayuu halkan uga dhigi doonaa properties qodobkaas ma la fahanteen ayraade parameters uu kaga dhigi doonaa qodobkaas meelaysan marka halkan shardi ma inuu ahaado create element dadaan do samey document yani tusaale Soomaali ahaan daayira samey document save okay intaas markaan save garay intaan hal mar iska tiro saanta isku qaldamin
halkaan aan tagaya run okay hadda uu sameeyey halkaan aan tago magaciisa halkaan wuxuu soo sameeyey hebelowgii halkaana muxuu keenay objectigi soo jeedaan objectigi oo ahaa attributes ka macnaa ma attributes halkaan u dhaxgelin doona okay deetana childrenka halkaan hadaad fiirsaan jildigiis waa text caadi ah sooma hadda halkaan aan ka dhigi ka waran h1 haddaan ka dhigi h1 oo halow asigay ku jirto hi camal kaba soo qaad hi ku jirto muxuu sameynaya markan wuxuu sameyn doonaa meeshan children sooma childrenka halkaan la keeni doonaa inta marka muxuu ku arkay childrenka muxuu noqday jsx sooma jsx soo noqdo sooma jsx kaasuu bedelayaa waxa functionka uu ku bedelaya maxay tahay functionkan oo leh magaciisa muxuu ahaaye waxa halkan ku jiro saddexdiisa aan fiirino balkaas aan run garay hadda run okay halkan tag maxaa ujeedaa waa kana sameey maxaa ku jiro waa kan koowaad tag magaciisa waxaa la yidhahdaa h1 properties uu leeyahay oo la yidhaahdo class name uu leeyahay oo css kiisa sidoo kale jeldy uu leeyahay jeldygiisana waxaa waaye h1 waaye h1 kaas oo properties aanan lahayn wax halkan ma hadaad fiirisid wax properties aan tamaanan siin children uu leeyahay oo ah hi macna okay marka halkan mid ma ku qaldaamina macnaa kullama waxaa eri kullama uu jsx u arko wuxuu u bedeli doonaa functionkan okay functionkaas uu bedeli doonaa functionkaas wuxuu uga dhigi doonaa parameters uu uga dhigi doonaa waxa looga baahan yahay halkanna waa sheegna waxay ka kooban tahay kan kaliya muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay tag name ilaahay kuma simde waxaa kaloo ku jiro options ama waxaa tirahdaa attributeska oo halkan magaciisii galaaska iyo styleka iyo waxyaabaha faraha badan iyo waxaa kaloo ka kooban yahay children okay children intaasuu ka kooban yahay marka kan haddii la yimaado asigana maxaa la dhihi doonaa asigana muxuu noqonayaa sidoo kale tag name sidoo intaas ku kooban sooma tag name iyo options iyo children marka hadduusan options jirin nala lagu bedeli doonaa laakiin hadduu jiro muxuu ahaa waxaa la dhihi doonaa magaciisii wixii meeshaas ku qoran la keeni doonaa jirta marka si caadi maan wala haddaan u bedelna intaan anagoo tijaabinayno waxaan ka fahnaba intoo kale haddaan ku bedelno maxay noqonaysaa caadi si maan wal waxaan u bedelaynaa function waxaan haysanaa samey la yirahdo kaba soo qabo samey la yiraahdaa functionkan intaan kasoo bilaawna akhrinta inta marka kasoo bilaawna halkan maxaan gelin doonaa functionkan saddex parameter uu leeyahay saddexda parameter uu leeyahay maxay tahay ko tag name labo options ama attributes waxaa doontaba dheh options sidoo kaleetana wuxuu kaloo leeyahay children children intaasuu leeyahay marka intii oo kaleeta aad halkan ka qaadanaysid inta ku base garayb inta maxay noqon doontaa h1 okay tag name ku waa h1 optionska muxuu noqonayaa object waaye wuxuu ka kooban yahay saana la dhihi doonaa class name navbar okay navbar waa parameterkii labaad waan buuxin sooma parameterka saddexaad maxaa lagu buuxinaya marka halkaan imow inta markaa imaad jsx haddana aragti okay jsx hadduu yahay maadaama jsx-ka simple waxaa bedeli doona functionkan sooma halkaan aan tegin haddana functionkii aan usii basgaran waxaa leenahay set inaada sameey okay muxuu ka kooban yahay marka halkan h1 okay h1 sooma labo malaha nalaan u bedelaynaa asigana sidoo kaleeto maxaa children leeyahay text caadi ah oo ah maxay sidaan waay macnaha sheekada soo dhacayso marka halkaan haddaa fiiriso sidii uu qoranta xoogaa magaciisii baalkan formaterkana ay furan saana dandano iyo kan aan qornaayo okay labadan isku mid mo iska ignore garay inta arrowda ka hooseyso halkaan tag okay samey documenti kolley documenti aan ka tagay laakiin isku mid waa soma function magaciisa iska ignore garay laakiin gudaha ku jiro waa isku meeshii sax qodobkaas ay leesan soma marka asiga simple marka wuxuu sameyn doonaa waxa halkaan aan siino kan halkaan waxa aan ka siino wuxuu ku shubi doonaa saddexdaas parameter saddexda parameterna waa isla aragna waxay ahaayeen
tag name-ka iyo optionska ama attributeska iyo guild rank. Guild rank hadduu asigana yahay JSX kaleeto wuxuu samayn doonaa isla shaqadii oo kale sii marsiin doonaa ilaa uu tree-ga ka dheeraado macnaha. haddii sheekada dheeraato oo sii dheereena macnaha hadda lacala kaba soo qaad kan gudihiisa haddana waxaa kusii dhex jiro span ku dhex jiro span. Okay, span kana waxaa ku dhex jiro small kana waxaa kusii dhex jira I italic macnaha italicana marka waxaa ku qoran hello. sidee loo qoraa kan ya culamaal kan sidee loo qori karaa simple. halkaan aan tegaynaa waxaan leenahay okay nidaamka le maraysaa bis adiga. okay halkaan aan tegaynaa waxaan leenahay kaas horta waa intaas. halkaan markaan joogno okay h1 kanaan joognaa hadartan waa kana h1 kan gudihiis maxaa ku jiro span ku jiro marka halkaan muxuu noqon doonaa kanaan saaraynaa waxaan leenahay adiga booskaaga waxaa sameey span sidoo kale object maaha null sidoo kale muxuu qaadan doonaa mid kale waayo small ku jiro haddana oo JSX kale soo halkaan aan tegay waxaan leenahay sameey adna sameey functionka magaciisa waaye kulli wax kale maaha asigana halkaan muxuu ku qaadan doonaa name-ka magaciisa halkaas small ah sidoo kale muxuu qaadan doonaa null maxaa raaci doono sameey haddana okay sameey waa kana small hadda joognaa ayadana noo dhiman italigas halkaan aan teginayo waxaan leenahay ayada maxay leedahay properties ama attributes null oo faaruq ayada marka gudaheeda maxaa ku jira text caadi hello marka halkaan ka soo geli doontaa sidaanu tree ga noqona macnaha okay saana la isku xirxirmi doona marka nidaamkan inta badan waxay yiraahdaan flutter saana kale isku xirxirsan yahay kulli flutter hada aragtan qaabkan kale isku xirxirsan yahay widget ku sii dhex jira wala ku sii dhex jira fara badan oo saas isku dhex jiraan marka qaabkaas waa macnaha hadda kan hadan iraano magaciisa sameey balkan kan andano okay oo dhameystray sorry kan editing soo ku socdaan ka soo tagay halkaan aan dhaho rangaray okay hadda kana wuxuu keenay kulli formatka iska ignore garay laakiin si isku dhex jiraan document h1 waxa ku dhex jira h1 kale to h1 kaasna waxa ku sii dhex jira span na waxa ku sii dhex jira small na waxa ku sii jira I na waxa ku sii dhex qoran hello. waadix marka asiga marka shaqadu qabto waxay tahay inuu XML ku bedelo magaciisi JavaScript caadi ah asigoo basekiisu yahay uu qaadanayo function halkan laga sii marka halkan functionka maadaama aan rabno waxaan aan rabno magaciisi in loo bedelo magaciisi muxuu ahaaye document object domka caadiga ama magaciisi JavaScript caadiga ah oo dom manipulating in loo bedelo daan u baahanay waxaan halkan siin doonaa muxuu ahaaye document dot create elements okay kaasan siin doonaa kaas sababtan u siinayna maxay tahay wax kale ma ahan haddaan rabna inaan create gareeno inta waan aragnay waxay sameynaysaa mid walba wuxuu tagga iyo propertieska wuxuu ka soo qaadan doonaa children Soomaan halkan haddaan rabna inaan sidaas oo kala sameyn anagoo isticmaalana JavaScript caadi ah waxaan qor lahayn const div then waxaan leeyahay create document dot create element asi laba parameter u qaataa options iyo wuxuu qaataa tag name laakiin childrenka saayid ku yahay waa arkayna taas halkaan marka waxaan leenahay h1 kaba soo qabo ama div aan leenahay halkaan waxaan siinaynaa options marka options ka dartaan oo iska ignore gareynayna null symbol iska gelinaa Soomaan marka sidaan oo kale aan uga baahanaa inuu sidaan oo kale wax noogu sameeyo kulli parameters halkaan uu iskaga dari doonaa laakiin se waan ka xadidi karnaa okay waan ka xadidi karnaa macnaha oo aan anaga manage gareynayno function kan inuu si directly ula hadlo waan u diideynaa waxaan leenahay function kale anaga aan sameeysanay oo asiga si toos function kan ula hadli doono kaas la sheekaysan leenahay adiga iska daa documentigan okay marka taas oo kale saan u sameyn karnaa qaabka noocaas saan u sameyn karnaa intaan togal markan aan iska masaxo asiga dhan delete kulay kan
document.create element good intaan tagaynaa waxaan leenahay function kan adiga ribalka adiga waxaan leenahay wax kala qaban documentigan xataa iska daa waxaa tiraahdaa function waxaan anaga samaysan doonaa waxaa la yidhaahdaa kaba soo magaca maxaan ula baxnaa wuxuu qabanayaa macnaha shaqada hadirtaan oo ahayd in uu bedelo magaciisii JSX uu bedelo magaciisii HTML-ka caadiga tagiski waxaa data sheega objectiga caadiga marka kaba soo qabo create element kala create custom element kaba soo qabo custom as kaga darsano custom elements kaasoo kala leenahay okay function ka marka anaga qeexan doono oo qoran doono siduu u dhaqmaayo waxa dhan okay marka intaan tagno waxaan leenahay function kan simply waxaad isticmaali doontaa function ka marka intaan ku sameeyno waxaan leenahay function kaas magaciis okay kana soo qaadno halkan deetana waxaan dhihi doonaa halkaan aan tegaynaa function kan marka maadaama asiga wax lagu bedeli doono waayo halkaan markaan keeno minus asiga waxaa loo dhiibi doonaa 3 parameter soo ma صح saddexda parameter aan sii qabsanaa maxay kala ahaayeen tag name sidoo kale muxuu ahaa options iyo maxay ahaayeen children marka jaildiga waa fara badan yahay oo list way horaan waxaan u aragnay rest operator halkaan marka waxaan leenahay children okay children that's it okay marka hadda aan fiirino bal intaan waxaan leenahay log waxaa soo saartaa bal intaan meesha ku jirta mar isu saar bal intaan waxa ku dhex qormi doono itu sameeyana okay intaan soo koobinay halkaan aan paste ku leeyahay okay save get waxaan tagaynaa pro meeshan hoose marka maanta oo dhan intaan tan qorqori lahayn waxaa noogu wanaagsan inaan intaan dhan qaadno aan koobinano oo halkaan scriptiga aan geyno okay scriptigan waxaan leenahay npm start hadii la qoro rangaray function kan shaqadaas qabo okay marka dhowti npm start la ndii doona bas marka halkaan waxaan leenahay clear then npm start okay run wakana markii okay kana dad fiirsan wakana kulley waa sidii iskugu dhex jireen hadaad aragtaan marka aan rangareebal intaan haddaan rangareynayo maxaan samayn jirnay node.js aan rabaa inaan ku rangareeyo waayo halkaan kuma jiro wax documenti ah ku xisaabtan wax yacni node.js uu garan karayn kuma jiro objectyaashan dhan node.js waa laga heli karaa maana marka halkaan waxaan qoraynaa node page dot pages what the fuck okay halkaan marka index.js run markaan dhaano maxaa soo saaray nothing waxaa soo saarin why sababta maxay tahay marka sababtoo ah kan cid u yarta ma laha ilaan kana ka bilaaban doontaa sheekada soo ma marka intaan tago intaan waxaan leeyahay okay wax kala sameynin elementigan u yar macnaha waayo function markii loo yar uu ka xismi doona soo marka hadda npm start good uu sameeyey oo kana asigoo callinkiisa leh clear okay intaan tagna marka andaho rangareekan okay halkaan waxaa ujeedan waa kana meeshaan xoogaa waa isla dhaafiyey culays ma lahan wuu isdhaafiyey macnaha objectiga hore waxaan ogeyn markii lasoo print gareynayo orderkan sidaa markuu kuu yahay hadduu doono cagsi uu ka dhigi karaa siduu doono ka yeeli karaa wax horaan u sheegnay ahayd inkastoo halkaana aan operatorkaas aan ku darnay operatorkan shaqadu qabto waxay ahayd markii halkaan la keeno means spread operator noqonaya soo marka kaasaan ka saaraynaa hal maraan ku celiyo aaraad run good this time haddaa la fahmi karaa adma arkataa halkaan marka waxaa imaaday meeshaan ribish waaye haddaan ku celiyo wujudan aan fududay si hore looga fahmi karo
كل مركز كده قف فاهم الكلام هاي سيدي واحد انت هلا وضعه hello then npm start okay run and run okay halkan markii la fiiro markii inta maxaa la keenay markii la rangareeyay filekan halkan noo yaalo markii la rangareeyay waxa la soo saaray sheekadan markii maxay tahay horta halkan lambar la keenay oo ebelow 0 ah lambarkan sababta loo keenay maxay tahay children ilan array waa soma list way sadarteed index ku soo qaato macnaha shit meeshaan wili muxuu ahaay kanan markaan compile gareynay kan ku helay macnaha hal mar intaan ku celiyo ayraado compile okay compile kii rank mal israacan karo aan hal mar kanaan sameyno bal okay hadirtaan waaye hada mujidan meesha marka muxuu keenay saddexdii shay macnaha halkan dad fiirsan saddexdii shay maxay ahaayeen object waxaan create calibration sameynay oo object-ka macnaha oran uga hadlan waxaan waageedii aan javascript-ga caadiga baranaynin marka halkan tag name-ka waa kana ilaahay kuma sumdiida haya ku dhex jiro sidoo kale options object waaye oo ay ku dhex jiraan kaas macnaha object-kaas waxaa ku dhex jiro property la yiraahdo class oo value-giisu yahay noocaas iyo okay halkaan marayso marka halkaan meeshan waxaan bedelay wax kale ma ahayno halkaan aan rest operator ka saaray deetana markaan rangareeyay wuxuu soo saaray waxan okay rest operator kan ka saaray meeshan inta rest operator kan keene horaan u sheegnay muxuu ah waxan wuxuu ku sameyn doono function kan uu ku bedeli doono function kan haduu halka magaciisa ka helaya halkan uu ka soo weli doono macnaha marka function kii uu ku shubay function kan muxuu ku shubi doonaa tag name-ka soo jeedaan halkan tag name-ka uu keenay sidoo kale wuxuu keenay options-ka ama attributes-ka halkan waxay leedahay oo dhan ayuu halkan keenay sidoo kale muxuu keenay children-ka halkan children-ka list noqon kara way badan karaa macnaha okay waayo halkan waxaa la keeni karaa h1 ayadoo halkan ku jirto aadana waxaa la sii barbar dhigi karaa oo dhinaca kale laga dhigi karaa macnaha gudaheeda lama gelinayo mid kale taan la dhigi karaa span oo kale saan kale la dhigi karaa soo ma marka that's why waxaa loo qaatay muxuu ahaay inuu noqdo list waayo list of children isu leeyahay parenting muxuu leeyahay many of children macnaha ayagoonan children kan uusan ku dhex jirin kan laakiin laba isaan u noqon karaa kuwaas hore u naqaanay marka maadaama saas uu list uga dhigaya macnaha okay marka waxaan rabnaa marka ilaahay kuma isma diiday maadaama anaga halkan aan keensanay sheekadan oo aan dhiri muxuu ahaaye functionkan saan ha noqdo maadaama aan dhahnay waxaan rabnaa inaan dhahno magaciisii hal shay inaan ku darsano document markaan create gareyno oo aan dhiraano document dot create element create element markaan dhahno muxuu u baahan yahay tag name iyo wuxuu u baahan yahay iyo options u baahan yahay soma okay horta tag name ku wanaagsan waa kana tag name ku waa kana okay directly halkan ka sii tag name tag name ku waa siisanay sadartan muxuu create garan doonaa element ama tag magaciisu yahay kan halkan waxa laga soo siiyo hadda maxaa la siiyay h1 la siiyay macnaha واضح h1 la siiyay macnaha okay marka ilaahay kuma ismadiid waa ila fahmaysan soo qodobkaas marka inta waxaan leenahay marka const inta marka elementiga la create gareeyay inta noogu keed okay elementiga uu create gareeyo halkan noogu keediyaan leenahay marka waxaan rabnaa elementigan gudihiisa inaan wax ku dhex qorno children-kan maxaan u baahannahay inaan saas sameyn waayo kan documentiga waa haysanaa children halkan aan ku haysanaa oo tiro badan waxaan rabnaa inaan ku dhex qorno documentigan maxaan sameyn waxaan leenahay elements dot append child iyo append waa labay kala ahaayeen waayadii aan ka hadli jirnay childiga append child append wuxuu qaadanayaa si fiican appendiga wuxuu qaadanayaa magaciisii text caadi inuu qaadan karaa sidoo kale tana
node caadi ahna wuu qaadan karaa ama element caadi ahna wuu qaadi karaa laakiin si append child kaliya wuxuu ku xisaabtamayaa magaciisa balkan node kaliya ku xisaabtamaya marka childrenka wuxuu noqon karaa text caadi ah sida hadda halkan ugu jeedan text caadi halkan yaala soo ma marka sidaa darteed append aan isticmaalana halkan marka waxaan leenahay appendiga marka maadaama halkan ay list tahay kaba soo qabaan fuzeno children midkiisa koowaad noo soo marka simply hal xaba ku jira halkan xabana position ku fadhiisan doona maxaa waaye waa 0 gana asaga noo soo qabo deetana halkan waxaan leenahay return waxaad soo celisaa return element ay raadi element la create gareeyay celi okay elementiga aad create gareysay celi aan leenahay okay marka intaas aan sameeyno intaan tagaynaa marka maxaan ku sameynaynaa hal shaqo kaliya aan rabnaa inaan inta ku qabano shaqadaan ku qabanayna marka maxay tahay halkan waxaan ku qabanaynaa wax fudud waaye kaliya waxaa waaye documents waxaan rabnaa html ka inaan kasoo muujino ilaa waxaan tagiskan halkan lagu qori doono waxaa la rabaa in html ka kasoo muuqdaan soo ma oo browserka marka halkan waxaan leenahay document.get elements by id then id ga kaba soo qabo root oo kale tan iska leenahay deetana waxaan halkan siinaynaa jelligaas muxuu noqon doonaa waa root jelliga kana jelli la siin doono soo ma create elementigan صح صح لأنه إحنا نصينا يا مجلسي جيل ونصين دونا صح كذي أنت عن قلب كاس بقولين عن أنت عن سيف جرايو عن ده إنه بال كومبايل جراي مركو كومبايل جرايو عن تكن مجلسي جيس كعادي جواكنا ونوسو كومبايل جراي وسيدانا مركو كم مركو محو بهاي هل شغو بهاي in la call garay u baahan yahay si uu u shaqeeyo soo ma in la call garay u baahan yahay okay marka yaan call garaynayna marka ma kanaan call garaynayna ama second inta la call garaynayo kam ya ma second ya kan kore ma call garayn karno kana call garaynayna kan damba ileen wuxuu wax ku shubayo waxa waay kan soo ma سيدرتي كان نوغا باهن انا كول كرين marka halkan waxaan leenahay kaba soo qaad document dot element create element maxaa get elements by id waxaan saa marka u qorayo waxaan ka wada kan hadda muxuu soo celin doonaa kan hadda fiirsan muxuu soo celin doonaa kan waxa loo baas garanayaa tag iyo options iyo children soo ma markii loo baas garay muxuu bedel doonaa jaildi oo documenti objecti maaho uu soo bedeli doonaa sax kadib muxuu soo celin doonaa document objectgaas marka halkan document object la keeni doonaa halkan jaildi uga dhiganaa labis that's it halkan marka waxaa leenahay elementiga waxay lagu soo shubo halkan ku shub halkan waxaa la dhahaa root save page html kan tagaynaa waxaa leenahay html kan index.html okay inta marka waxaan leenahay div kaba soo qabo ama badigan gudihiisa waxa ku jiro inta marka waxaan siisanaa id maadaama id uu isticmaalayo midka kan soo ma marka halkan waxaan leenahay id ga waa root then maxaa kaloo loo baahnaa scriptiga inaan kusoo xidhno soo script then src deetana waxaan leenahay index.js clear marka intaan qaadno aan dhahno browserka gay kuran garay browserka maxaa soo saaray hello صح hello soo saaray okay bal intaan tagno bal anagoonan taabanin magaciisii qaybtan page ka dhan kaliya joogno JSX kan aan ka bedelno meeshan hello ku qoran inaan u bedel browserka okay browser intimo okay meeshan marka hello ku qoran inaan u bedelnaa rabnaa magaciisii HTML kana ma taabanayno JSX ka wax ka bedelayna waxaan rabnaa in laga bedelo magaciisii HTML ka marka mid xasuusnow niyadoona ku ahay kullama aan magaciisii muxuu ahaay aan compile garayno magaciisii waayo halkan markaan wax ka bedelno JSX kan hadaan wax ka bedelno waxaa loo baahan yahay in la compile gareeyo sooma
oo Babel uu compile oo JavaScript uu ka dhigo JavaScript-kaas kadibna browser-ku uu fahmi karaa mayno marka kullama aan compile gareyno documentigan halkan kuma jiri doono line-kan waayo line-kan halkan kuma jiro halkan waxa ku jiro kaliya halkan keeni doono marka line-ka intaan keensanayna marka intaan waxaan leenahay line-ka waa kana halkaana marka waxaan leenahay kan inta ka soo qabo inta uga baas galay bas okay that's it save and start gareyna marka start okay HTML kan waxba kama taaban kulli hadda waa compile gareeyay laakiin waxa baan ka bedelayaa JSX kan wax ka bedelayaa okay JSX kan adaat wuxuu ahaa hello hadda waxaan leenahay kaba soo qaad hi JSX with Babel compiler wax noocaas kale tahay taas kale iska qorna okay save kan tagina compile good markii waa kana soo baalka la sameeyay saysan uu yaala sax waliba kiyo raacsan soo jidan waxaan ku dhex qoran warkaana ku dhex qoran waa kana sheekadii kale tan wala browser kan tagno markii waxa la soo saaray hello waxa la soo saaray wixii aan qorna la soo saaray marka anagoona waxaan ka bedelaynin muxuu ah JSX kan qaybtan dhan iska ignore gareynano qaybtan dhan anaga iska ignore gareynano JSX kan kaliya lama caamulana kan xataa waxaan sameyn karnaa file kalena iska geeno si noogu qurxoonaado wala wadna marka halkan waxaan leenahay hello compiler waxa soo iska qornay hi JSX then start ledebs oo compile gareynaya file halkaas uu overriding ku sameyn doona waa kana hayada marka markaas waa caadi amoo marka waxa markaan ugu galgalanahay kaliya waxaan rabaa inaad ila fahantaan meesha uu react ay ka soo dhaxgalayso bal caqabadu waa tan marka react caqabadii xalinaysa midaan waay kaba soo qabo waxaan rabnaa in aan kan hadda hal jil dareenaan soo ma bal kan aan file kale iska geyn file kan waxaa leenahay kaba soo qabo file aan ku samaysanaa page ka soo dhaxbaxa dareenkiisa mo waliba folder gooni samaysanaya aan leeyahay kaba soo qabo src kulli react sida aragteen src halkaas lagu dhex qoraa oo code-kaada marka kan halkaas aan geenaya kan gudihiisa marka waxa ku dhex sameynaya folder kaleeto isaga waxaan leenahay root macnaha ama compiler okay compiler.js JS عادي iska dhig waa anaga marna wax XML halkan inaan geeno okay JSX inaan geeno meesha marna marka aan soo qaadaya cut aan leenahay waxaan keenaynaa compiler kana aan u dhiibina function kan halkan noo yaala okay function kan marka waa export gareynayna export clear waa export gareynaa kaas sidoo kale to halkan waxa naga dhex yaalo waxaan xoogaa waxa way qofka halkan waa geen karnaa ma waasina intaan keenina halana const ama function kale tan sameynayna function kale to asiga marka default aan ka dhigayna default aan marka waxaan leenahay JSX compiler okay compiler then compiler kan wuxuu ka kooban yahay wuxuu soo celin doonaa asiga compilerka sheekadan soo celin doonaa kana soo qaadanayna marka okay ama kan iska soo dheh halkaan aan tagaynaa kan wuxuu qaadanayaa labada shay uu qaadanaya waxay tahay midkan function-kan magaciisa iyo wuxuu qaadan doonaa documentiga okay halkaan marka waxaan leenahay root child iyo document ama magaca kale sheega okay HTML selected tag iska wadano by default ana kaas kan gelin kulli default kaas waa ogtiin oo malena sida hadii laga soo tago macnaha kaas ka qaadan ka wada oo aanan lagu soo qorin marka halkan inta markaan tagno waxaan leenahay HTML tagas waxaan dhex gelin doonaa waxaan dhex gelinayna append jail ilaa HTML tag waay inta lagu baas gareyno sama append jail diga loo baas doona maxaa waay root kaas waay clear
intaas marka halkaan inoo yaalaan waa compilerkeena iyo magaciisii functionkii wax lagu compile gareynayay marka halkaan aan tagno maadaama aan labadaas u baahannahay inta waxaan leenahay import oo kusoo import gareynaynaa inta marka filekaan rabno maxaa waaye compiler okay compilerkaas marka maxaa ku jiro laba shay ku jiraan oo laba function aan u baahannahay ku jiraan labada function maxaa waaye kow waa midka defaultiga ah kan waxaa leenahay default waaye halkaan dhig comma then midka kaleeto caadiga ahna waa soo qaadaynaa isagana halkaan aan gelinaynaa that's it marka waa kana labadaas function ku jirto functionna waa compilerkii functionna waa functionkii wax lagu bedelaa marka kan waa ku qasbanaa mar walba inaan inta keeno si hadhow tibro uu aado markii la compile gareeyo falka meeshaan si uu aado macnaha marka intaan tagno inta maxay nooga baahan tahay marka JSX compilerkan waayo halkaan aan keeno soma JSX compilerkan laba shay u baahan yahay haddaan kor tagno wuxuu noo sheegayaa root jaldiga yaa waay midkaana ah kanaan soo qabanaynaa waxaa leenahay waa kaasa sidoo kaleeto kulley halkaan haddaa fiiriso inta caadi aan ugu baasay laakiin function halkaan usoo baasi doonaa intaan callinkiis ka siinaya si halkaan hawsha iga fududaato okay then maxaa kaloo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay kan defaultiga marka defaultigan kulley halkaanna waa kusoo dari karaa ama haddaan ka tagana kan uu isticmaalaa meeno okay marka waan iska ignore garaynaya marka okay that's it intaa markaan sameyno aan halkaan tagno marka aan dhaano compile bal markuu compile garay muxuu keenay aan fiirino laakiin halkaan filekii compilerka ka maqan file compilerka maxaa ku jiray magaciisa ku jiray somaha codekan dhana ku jiray sax laakiin halkaan haddaa fiiriso muxuu keenay meeshaan fiiri inta bal aan bedela bal almar intaan bedelaya waxaan leenahay hi compile let wax soo kaleta hi compiler save okay wili kiyo haysta soo ma halkaan waxba kama bedelin marka inta labadan kanaan iska masaxaya delete get okay save marka kan .js kiisa iskaga daro kulley si hadhowti kulley waxa inta ku qoran oo dhan halkaas la geyn doonaa simple marka hawa meeshan pages okay marka aan start gareeyo nothing waxba isma bedelayo waxba ma sameyn صح why sababta marka maxay tahay okay this is good sababta inta model type that marka inta waxaan leenahay position kan mujida table halkan ku rangareyno marka halkan kan folder aan ka dhigaalina soma folderkana inta ku sheegno rabaa marka folderkana waxaan leenahay dot slash src slash that okay hadda compile garay good hadda uu keen soma fileka uu keen laakiin waxaa loo baahan yahay kan ilan kan waxaan doonayaa import file soo import garay oo position kan uu ku dhex jirtay yaalo dotkaas macnaha waxay ka dhigan tahay this position okay file kan laga yeerayo position kiisoo kale ku dhex jira marka halka hadda firis compiler kuma dhex jiro saa darteed compiler waa laga soo tagay soma compiler marka waa loo baahan yahay la soo raaciyo la rabo symbol kana waxaan leenahay wax walba oo src ku jiro qaad ay halkaas geey dollar lagu bedelaya ay raade star mo mise ace asterisk okay hadda tan run okay hadda compiler waa la keenay sax compiler waa yimid kii kale tan waa yaala then html kan waa kana bal aan ran gareena bal hal buuq yar uu tusin doonaa waxba ma soo bixin okay intaan tagno console-ka meesha muxuu leeyahay import module bla 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 marka symbol kulli html kulli waayidii html kan gaadlayna iyo javascript halkaan marka maxaa la dhahayaa type iyo module sameeyna module صح save هذا مركب كمال جراي اوكي
markaad refresh dhaano JSX compiler is not defined functionkaas ma jiro macnaha kuma dhex qeexna halkan okay kan saan u leeyahay feerana sigana symbol inta wax yaraan qaldnay away kan meeshaan function arrow function aan sameynay soo ma arrow function ولكن magac toos ma lahayn marka halkaan waxaan leenahay function caadi aan ka dhiganaa function datana kan aan arrow function caadi aan ka dhiga soo ma jiraan marka halda aan compile gareeyo git browser ka tag this is high compiler صح marka hadda waa soo kala saarnay muxuu ahaa kanna waa wixii halkaas functionka markii la rangareeyo soo muuqanay macnaha oo console-kan halka ku qorayo marka hadda waa kana ilaahay kuma smid halkan JSX kan u baan la macaamilayna marka waa kana filekan firaaqo nuuya markaan wax badan oo compiler iyo sheekadaas ku jirto isaga caadi wala macaamil karnaa marka halkan waxaan dhigi karnaa 10 h1 iyo balaa isdhexgal dad doonto halkan kala taqaandana h1 asiga waxa ku dhex jira hello badi asiga ta copy bala save laakiin hadda taan man diiday hal xabo xitaa inuu soo qaadana malaymay ma compile gareeya aan compile gareeya hal xabo kaliya ku soo qaadan doona meeshaas hello kaliya soo inta iska ignore gareeya hostan laakiin hal hello soo qaatay way u soo qaatay wuxuu u soo qaatay hadda compiler kan tagno jailiga midka ugu horeeya soo qaadan doona soo marka waxaan rabnaa jailigan waxa ku jiro dhan inuu soo akhristaan u baahannahay okay jailigan waxa ku jiro dhan maaragta inuu soo akhristaan u baahannahay waxaan dhigi karnaa marka halkaan aan tagaynaa waxaan leenahay children dot for each wax walba kuugu jiro oo jail walba kuugu jiro macnaha jail walba ku jiro hee waxaan samaynayna cut soo dhigan halkaan keen deetana markaan jail dhiga intuu ka baas deetana waa kaas save hadda markaan save garayno compilerkina waa kaas okay hadda JSX kana gey hadda aan ran garayno marka okay compile is fine home waa kuwana marka okay marka hadda JSX aan qorona anaga HTML na ma qorona clear focus ku xasaaruna magaciisi JSX okay marka meeshaan yay reacti halkay ka soo galay sheekada waxa waaye meeshaan waa marka halkaan mar walba anaga JSX aan la macaamilana clear waa compile gareynana asiga wuxuu u bedeli doonaa magaciisi waxaas marka halkaan saa doonto ka dhigo save inta la compile garay npm start compile gareynaya deetana browserka hadaan tagno waa kana macnaha soo jeedaan marka mar walba JSX aan la macaamilana marka react meesha sheekada ka soo galayso waxa waaye lacala kaba soo qabo anaga hadda compiler-kan aan noo samaysan sax waxaan u baahanay kaba soo qabo style-na u baahanay style-na u baahan halkaan aan tagno kaba soo qabo inner style ay jiro soo style kulay saa markaan dhaano deetana halkaan object aan baasi doonaa meeshaan object-ay sababtaan u baasisno in second wax yar kadib aan ka hadlaynaa halkan kaba soo qabo color aan leenahay fartan colorkeeda inaan bedelna rabnaa ama waxa gudihiisa ku jira inaan bedelno okay color lemon deetana waxaan leenahay red okay red save aan compile gareyno okay halkan mo nothing wax isbedela male bal intaan fiirina marka inta da fiirso object-gaana la keenay object-ga maxaa ku jiro options uu leeyahay optionskiis maxaa kamid ah style maxaa ku jiro object property liraado colorna waxaa ku dhex jira data ah red okay xogtaan aan u baahanaa marka inaan siino kan waxaan sameynaynaa halkan elementiga waan haysanaa inta options waxaa noogu jira style kelimad style liraado stylena waxaa ku dhex jiro muxuu ahaaye magaciisii properties oo color la yiraahdo soo ma marka halkaan aan tagno very simple adartan hard coding aan sameynayna waxaan dhahdaa elements dot style meno style صح اجرا مو ساس ولا ديك ستايل دوت كلر اي واحد من اللي جنو دوت
color kadib colorka maxaan ku shubaynaa waxaan ku shubaynaa kan haddeertaan wuxuu wado waan yani alcumuum waan naqaanaa hardcodena sameynaya halkan marka waxaan leenahay options waxay sidaa midkaas wuxuu sidaa style waxaa ku dhex jiro color sidaan leenahay marka halkan aan tegayna waxaan leenahay options dot style waxaa ku dhex jiro color save balada compile garay nothing other than error soo saaray why error ka maxaa way error kan sababtu uu leeyahay aan akhrinayno properties null style ma bijiro macna inta ka keento uu leeyahay okay anyway aan fiirna halkan option is null good bal intaan ku laabto style kaas good markuu compile garayaan fiirino kan kulay saanu ka dhigay soma options good options marka markuu buu yaraan leena marka okay options hadirtaan null ku jiro itooya why is that sababtaas maxay tahay balan markan aan comment saarto aan interfere kaliya comment saar kan comment saar okay haddaan compile garayo okay kan madaxuu soo celi markooda horta mid null ku jiro sooma midkaan null waaye kan koobaad kan labaada wuxuu yahay ee xogtaas ku jirtaa sooma marka laba xaba ma meeshan iska dhex jirta aniga yes laba xaba iska jirto sooma marka kan hoose iska ignore gray aan ka saaro taas fiirso hadda hardcode-na leen sameynayni kan compile leenahay okay hadda ka marka commentiga ka qaado marka ka qaad the compile gray then sama jidin colorka waan bedelna red aan ka dhigna okay aan bedelna magaciisii haddaan dhahno kaba soo qabo intoo kale haddaan dhahno colorka waxaa ka dhigtaa green okay intaan compile garaynaya then green صح marka ma qiyaasi kartaa marka hadda compilerka markaan qoraynay error hada hornay qabsaday oo ahaa in kuwa null yihiin wax soo kaleeta ma qiyaasi kartaa marka haddaan dhiraahno hadda kaliya color markaan ku daraynay intaanan qorno soo ma haddaan lacala rabno ilan options color kaliya ma noqon doono styleka waxaa lagu dari doonaa font balaayo dhan tirada badan iyo muxuu ahaay size iyo displaygii waxyaaba fara badan ay iman karaan soo ma waxaas faraha badan structure-koodana waa kala duwan yahay okay optionskan hadirtaan style markii la yiraahdo style muxuu qaadanayaa objective ku dhex jira soo ma laakiinse color markii la yiraahdo maxaa ku dhex jira si color class name kaliya waa objectigaas kaliya waxaa lagu dhex dari doonaa kaliya property marka way adkaanay haddaan dhahno kaan diyaarinaynaa aad inoogu adkaanay marka qolada react ama teamka react ka shaqeynayay waxaanoo dhan ayagaa diyaariyeen wax noocaan oo kaleeta ah oo fara badan oo shaqeynayaan oo hadhowta adig kaliya XML-kaada la tacaamul ama JSX-kaada la tacaamul iska ignore garay compiler-kan marka qoladan maxay ku siinayaan marka react compiler-ka noocaan oo kaleeta ku siinayaan miila fahantay meeshaas marka inaga adirtaan kaliya markaan color le ku darnay haddaan dhahno ka waran waxaan ku daraynaa magaciisii kaba soo qabo waxaan ku daraynaa magaciisi muxuu ahaay baalka maxaa ahay background color way fududahay halkaan dhigi karna halkaana waxaan dhigi karnaa muxuu ahaay dot slash then kana waxaan halkan kusoo xiri karnaa magaciiskaas deetana intaynan tagna waxaan dhigi karnaa muxuu ahaay dot data ka soo akhri style wax walba ku jiro halkan ku shub waan dhigi karnaa very simple laakiinse waxaa jiro bal aan fiirna tan safe aan dhaho okay
pages kayaan ku dhex sameeyay kan ya okay aan soo koobiyey compiler kan gey deetana kan waa compilerkii pageska okay intaan joogaa then intana save deh halkan aan tago compile it's inta haddaa firis wax color lama soo siinin kulley style waxaasaa noogu jiro then marka compilerka caadiga okay halkan waxaan dhaanay inta color kardhaaf color intaan compile garaya marka hadda okay weli lama siinin waana loo siinin waxaan dhahnaa options waxay ku jiro style wixii ku jiro dhan halkan ku shub okay marka xogaa waa yara dhib badan tahay haddaan dhahno waa ka shaqeynaynaa waxay nagu qaadanaysaa waqti fara badan laakiin almuhiim conceptiga horta waa ila fahanteen aan filayaa sheekada si u dhaceyso macnaha marka qolada react samaysay waxay sameynayaan nidaamkan oo functionalitygan leh waxaan oo dhan iyo pageka sida u muuqanayo iyo muxuu ah state iyo waxyaabo badan oo hadhowta aan ka hadli doono waxaas oo dhan ay ayaga ku siinayaan marka for simplicity react sidaas loo isticmaalaya muhiimadaasay leedahay marka JSX kan qolada react ayada bedeli doonto waxa walba halkan aad adigu qorto uma baahnid aad inaad hadana configuration compiler inaad adigu qoratid oo aad dib u soo hagaajisid uma baahnid okay marka muhiimada halkaas waa macnaha marka qolkan haddana anaa class hadda siino oo CSS class style usoo sameeyo ma qaadana CSS style okay good siin karnaa sigabal xadiidaya ma laha kaba soo qabalkaan aan tagno inta waxaan leenahay inta pages naga xir CSS aan rabnaa sooma inta file ku samaysan waxaan leenahay style.css then dots waxaa dhahdaa dot ma ahan jirno dot class ka sameyn ayadaan dambe ma qorin marka halkaan waxaan leenahay kaba soo qabo color change then kadibna waxaa leenahay colorkan marka muxuu noqonayaa blue safe okay intaan tegayna marka blue waa qalad blue ma qalad double e aan dhahay safe okay intaan tagno marka inta markaan tagno intana weliba stringaan gelinayaa ka raalli ahaado bilahanba ma qorin sanadkan dhan baanan qorin saan filayo adiga shaqo ahaan baanan qorin okay marka inta markaan tagno waxaan rabnaa marka CSS kan halkan keensano CSS ka symbol halkan aan kusoo import garaynayna waxaan leenahay import kulley functionalityga xoogaa waa siiraa qalqaldi doonaa laakiinse symbol in taxta CSS kama keenayno halkan aan tagayna waxaan leenahay HTML kana u tagaynaa HTML kana waxaan siin doonaa styleka okay inta waxaan leenahay styleka see lagu xiri jiray link mail link then style sheet folder halkan position kan kuugu imaan doono la yiraahdo style waayo markaan soo compile garay halkan la keeni doono CSS kan soo ma halkan la keeni doono marka folder halkaas kuugu imaan doono oo la yiraahdo CSS akhriso macnaha marka intaan tagno inta marka waxaan leenahay class name is class maxaa inta ku sameeyno change color okay copy okay change color save marka isla markii aan ku tashan inuu bedelayo anaga waxaan laga rabaa inaan compilerka la hadalno aan dirano styleka colorka CSS ka soo akhriso macnaha marka haddaan compile gareeyo markaan compile gareyno halkaan haddaa fiiriso CSS ka lama qaadin saan filayo okay walaal mar asaga dhan ma deleedaya asaga dhan waxaan deleedaya labadan delete good intaas markaan deleedo kolley kan inuu ku daraya rajeynaya kolley folderka dhan qaadaya eri compile okay CSS kolley kuma soo darooyo waa kasoo tagayaa
marka aan soo qaado wal asigan aw aan cut iraado cut kulay inuu ku darayo muday javascript kaliya soo qaadaya asiga marka halkaan paste lana bas okay sis kan halkaas iska dhaxkaysanina then inta la ugu sheegayna marka inta aan leenahay inta u sheegnay then hal mar aan soo compile gareeyo marka soo compile gareeyo aan imaano browserka nothing wax isbedel ma lahan soo marka inta waxa laga baahan yahay compiler-ka inaan dhaano options-kan waxaa imaan doono halkii aad ka isticmaashay style class name majru class name waa jira soo markaas class name then class name waxaan ku shubaynaa options dot class name things as in tahay okay and the compile gray blue so majid blue saas ku banaan marka way yara dhib badan tahay hadaad fiiriso sidaas anaga maanta oo dhan inaan waxay qaadno oo maanta oo dhan saas isku dabaridno aad u adag tahay marka inaan hadana properties-ka waxa halkaan imaan doono inaan ku nidaamno waqti fara badan inaga qaadanaa hadaan waa diyaarinayna hadaan dhaano waa diyaarin karnaa laakiin wax walba update oo soo dirtay maanta dhan compile gareynay maano ha wax walba hadaad update gareysin simply compile in hadana tiraadey rabta marka waxaas oo dhan waa diyaarin karnaa inagu laakiin se waqtiga naga qaadanaysa marka sidaa darteed react meesha ka soo galay sheekada waxa waaye positionkaas ka soo gali doontaa marka si toos ah marka waxaan u galeynaa waxa la yiraahdaa react marka JSX kulay waa elephantine regina qaabkan wax uu qormaayo uu compile gareyn doono baalkan reactna muhiimadii leedahay waxa waaye compiler-kan ay wadaan oo HTML-ka iyo properties-ka sida waxa dhan la isku dhaafinayo iyada taqaan macna nidaamkii doonaan u mari karaan hadii doonaan nidaamkan ama nidaamyo kale oo ka casrisan ay mari karaan okay marka JSX aan focus ka saarno marka sidee syntax-kiisu u shaqeeyaa kulli wala fahantaan rajayna qodobka aan u socdo oo ahaa qaabka react ay meesha u soo galayso macnaha okay anagoo JSX qorayno without react in aan HTML ka la tacaamuli karno domka صح caadi waan u sameeyno soma anagoo react isticmaalay oo isticmaalana JSX iyo Babel barnaamijka yiraahdaan ayaa waxaan qori karnaa JSX code okay marka aan fiirino bal react magaciisi JSX ka caadiga marka kan waxyaabo badan oo san iga saamixayna jirto kulli syntax-ka waxa waaye wax kala ma ahan hadii halkan variable aad ku haysato meelahan kale variable aad ku yaalo ama aad rabto wax un calculation lagu sameeyna ama wax la rabo in la rangareeyo waxay u baahan oo hadaad u baahan tahay JSX inaad dhex geliso calibrate fur doontaa hadda kaba soo qabo 4 plus 2 maxaa way 6 soma okay hadaan compile garanayaa compile fine browser ka tag maxaa la keenay 4 plus magaciisi 4 plus 2 ma qeyn qoti 6 okay marka wixii calculation u baahan halkan la keenaa brackets ka la geliya marka hadaan ka dhaafo aan iraado kaba soo qabo 4 plus 2 as text ahaan u qaadana sida hello wadaan oo kale u qaadana macnaha laakiin sadad calibrate ka geliso macnaheedu wuxuu u akhrisanayaa inay tahay wax shaqo u baahan macnaha saas uu fahmaya marka saas uu keenaya macnaha okay marka si toos ah uga hadlaa rabaa intana iyo masaamixis waxyaabo badan oo haduu tadana inaan compiler iyo waxaas ku laabtay noqonaysa marka sadarteed react si toos u isticmaalay library react okay marka halkaan waxaan leenahay folder meelahaan kale to midiya la jiro react test kulay marba library-da hadana in la soo dejiyo waxa waqti qaadanaya in library-da la soo dejiyo qadkan xagaa iska yar culus yahay karna lahada okay react sheekadeeda waa tan kulay iska ignore garay kan folder kan dhan on delete asigan file ka saaraan delete halkan fiiri inta waxay ka dhigan tahay kanna waa compiler-kii sax kanna waa kii components fara badan u baahan kii qaban lahaa waay kanna waa tag halkan ugu soconay ignore that okay that compiler JSX compiler marka qoran qaabkan kula haaso compiler-ka iyo baalka loo baasay position-ka waxa la dhigi doono soo marka halkaan aan tagno inta waxaan leenahay const kaba soo qabo magaca doona oo la bixina hadda waxaan iskala bixinaa up then waxaan leenahay
calibrates kulli function ki javascript ka ku taqaano waa waxaan hadda aan qorayo marka maadaama uu yahay kan wuxuu soo celin doonaa JSX tahay asiga JSX ahaana ugu wacaya marka halkan waxaa leenahay app.js/c okay marka closing self closing tag iyo kuwaas waa ka hadlaynaa kulli ilaa ay barka iyo dulqaataya nus saac yaraan ku darsanaya bal kan wuxuu soo celinayaa kan wuxuu soo celin doonaa h1 kaba soo qaba h1 uu soo celinayaa kulli JSX ka data aan ka hadlayna la waaya halkaan marka waxaan leenahay hello save okay kana marka compile gareen ma nooga baahan kan waxaan leenahay kaliya clear or clear هذا بال اوكي options ده نود استعمالها marka halkaan aan bedelayo waxa leenahay passion ka dhigaado mujadin bash marka halkaan waxa leeyaan start marka npm iyaan kulli waa isku dabeecad waayo waxyaabo yar kala duwan yihiin marka hada la rangareeyo page saan ku soo baxaya oo react waa markan clear kan waa react halkaana waxaan qoranaa sidii caadiga ahayd oo JSX ka caadiga aan qoranaa marka kulli kan compilerkii iyo sheekadiisa anaga uma baahanin inaan qorno react qoladaas noo soo diyaariyeen waa iska ignore gareynaa kaliya waxaan focus ka saarayna markan JSX keena iyo code ka aan qorin ama logics keena aan rabno inaan sameeyo marka bal hal mar position kan dhan aan ka guuro waxaan aadayaa file kale tan sameysanayaa si waxaan xoogaa rabishkan uga dhex dhumano halkaan waxaan leenahay app.js then app.js ama JSX iyo JS labadoodaba waa dhihi kartaa okay free u tahay feel free ama JS dheh ama JSX dheh labadoodaba midkaa doonta isticmaal marka halkaan waxaan leenahay kaas celi deetana export maadaama aan rabno in banaanka aan ka isticmaalno waa soo export garaynana deetana intaan kusoo import garaynana ama aad u qor ama kan control space dheh deetana halkaas muxuu ahay ku import garay okay same way page ku isku sidii sama waa sidii hello gudi aan ugu dhaqor marka intaan dhan isku ignore garay qaybtan waa compiler-kii iyo kuwa hadda soo arkaysay oo rafaadka ah marka inta anaga rabnaa focus-kiina saarna marka okay halkan regular javascript-gii ayraade arrow function-kii caadiga aad taqaanay ama javascript-gii hore aad taqaanay waayo oo celinayo XML kana marka rabnaa inaan isla fahanno siduu u shaqeynayo asiga okay muxuu JSX kan ayraade okay marka JSX kan haddaan u baahannahay kaba soo qabaalkan waxaa noo yaalo variable kulli HTML ka ula tacaamuli jirto kala ula tacaamulaysa laakiin waxyaabo yar ah syntax yar ku jiro halkaan marka waxaan leenahay kaba soo qaad const waxaa tiri name is assigned to Abdurrahman oo kala tan ku qor waxaan rabaa Abdurrahman kan variable uu igu jira soo ma in aan halkaan keenan u baahanay HTML ka waan naqaanay HTML lacala hadii halkaan noo qoran tahay lacala HTML halkaan noo yaal sax HTML kan haddaan rabno gudihiisa variable wax noogu qoran yihiin inaan dhex keenno variablekaas waxa ku dhex jiro inaan inta position kusoo dhex qorno maxaan samayn jirnay waxaan dhihi jirnay horta soo select garay horta taggan marka soo select garaysid deetana inner textigiisa ama inner HTML kiisa waxa ku dhex qortaa variable kan wax ku jiro soo sameyn marka hadartaan position kaas hadda waxa ku bedeli doono calibrates marka furto macnaheedu waxay noqonaysaa inner HTML ka waxa ku dhex qortaa waxaan lagu dhex qoraa maxaa way name ka marka waxa ku jiro Abdurrahman that's it marka haddaan save dhawo waxa halkan keeni doonaa okay inaan hal mar start meeshaan wuxuu leeyahay error app.js is not react inta inaan soo import gareeyo rabaa magaciisa baalkan laakiin next.js marka isticmaalaysid uma baahnid waxaa next.js kan la qabsado marka uma baahnid inaad ka maalin baa iska dawado kulley page root ayaa jiro waa ayadan arki doonaa insha Allah marka hadda kan safe aan leeyahay aan damiyo aan daara marka hadda okay soo ma jeedin variable-kii sidaas lagu keenay macnaha okay variable-ka wuxuu ku jiro halkaas lagu keenay marka halkan
كلي هذا variable call أنا كسميني هذول على function هان لك function هذول هان لما حنسمين لي function كان حسوا لنا يا عبد الرحمن وكلبس عبد الرحمن علي وكلبس لنا هاي هل كان مركز سامع لنا function function محبوبة calling سمعنا سي واحد كجر الله كان معنا قال كان calling كسميننا ديتنا كلي إسلام مركب لما قبله intaan leeyahay restart marmarka qaarkood waa caawiya marmarka qaarna waa ugu dooranaya soo ma jid kanna waa kana siduu ku keenay soo ma jidan marka waxa aad u baahan tahay inaad call gareyso haduu variable kulli callinkiisu waxay in kan uma baahan laakiin function wuxuu u baahan yahay calibrations oo laga call gareynayo functionkaas sax yes taasi horta waxa waaye markaad rabto HTML kaada gudihiisa inaad dhex keento ama JSX kaada gudihiisa inaad dhex keento data laga soo aqrinayo variable ama function clear okay ilaahay kuma isma diido waxaa jiro qodobkaas horta qodobkaas waaye waxaa jiri karo ma samaysan karnaa custom tags kan hadirtaan waa h1 iyo h1 waa kuwaan horaa loo create gareeyay لكن ما سمعت كرنا custom tags معناها tags أنا قاعد لنا yes لكن tags كسيم بروح يسوع علم دونا JSX tag okay مركال كان نتقنه كبس أقول tag وحنا سمعنا اللي رادو لكن قصبين وحاء شردي وحاء واي tag أسميني سينو upper case هذا lower case دو يعني مجا كود upper case هذا يعني أريج حرف كود upper case هذا دو lower case نقطه لو ما أكون صندوق error كوسو بيحدون ولا المرة انترنجرينو كونيستي حالنا هاي my tag okay my tag this is كل واحد components اللي رادو دبان كقاعد لنا هبين دون إن شاء الله لقادر تان سكيج نور جري وحاس هل كان مركو حالنا هاي سؤالي واحد سؤالي سا h1 ديتنا h1 كان وحكون حقولنا hello okay safe كان نسوق هذا هل كان اللي معنا مركو تاجان self closing tag waa markan okay halkaan marka waxa leenahay paste and then save okay soo ku imaanaya macnaha markaan start do marka hello goy ku qoraa ama hel aan gooray marka saasuu ku keenay soo ma jidan marka kan waa tag anaga aan sameeyno oo custom ah okay tagan custom ka muxuu soo celin doonaa function waa assembly function kaas muxuu soo celin doonaa soo celinaya hello mii maqshan okay function ka marka muxuu soo celin doonaa tag oo JSX uu soo celin doonaa marka qodobka soo elefantin soma qodobka kood waxa waaye marka JSX aad qoraysid hadaad u baahan tahay JSX ka gudihiisa inaad variable ama function ku dhex yarto maxaa loo baahnaa calibrations okay calibrations loo baahan yahay qodobkaas niyada ku hay sidoo kale custom tag waa samayn kartaa custom tag gaada laakiin waxaa lagu qasban yahay inuu soo celinayo JSX tag waxaa jira hal shay oo aan rabo inaad ogaataan suuragal ma aha in halkan aad tiraahdo kaba soo qaba kan waa iska dhaafay waxaa kan hay aan ku dhex qoran okay kanna muxuu noo hayaa tagan customka ah halkaan keensan sidaan haddaan dhahno directly la dirtaan waa ujeedaa kii aan tusinayo magaciisa VS code kan dhahay meeshan error waa uu noo leeyahay sababta uu noo dhahay sidan waxaa waaye waxaa loo baahan yahay root taaga loo baahan yahay waxaa la rabaa laba taag يعني لaba taag mujda laba taag oo isku xigsan karta ma jirto ilaa ay ku dhex jireen one parents marka parentiga sembir waa in uu hal taag halkan ka koreeyo halka marka div oo kale to banaan divkaas banaan ay gudihiis ku dhex jiri karaan laakiin labadooda in ay dhigto suuragal ma aha okay taas la iskama yeelay macnaha waa restrictiga labaad qodobka labaad ay la fahantaan oo u baahanay marka كل ما أنا واحد سمعنا أنا نصف عنه فهم دونا فكال كان تاجن سوجدت تاجن ورابر كي إنتان بارنتي يسودم واي مرك جيل ديسكريا ماشان سكريا معنا يان وحلو بهاي بارنتي يسوق حجران جيلس
laakiin jails kaliya halkan ma keeni doontid. Okay, parent iyo jail noocaas wala fahansan. Okay, taas waay qodobkaas meelaysan. Okay, inta marka tag marka wuxuu noqonayaa ma jiri karo magaciisa jail tag ritaankan inaad u dhiibtid jail tag suuragal ma aha. Okay, waxa loo baahan yahay parent jail parent tagaasi ku dhex jiraan midkan waxaa jiro mid empty oo ay yiraahdaan fragments react fragment kan oo kale waa iska dhaafi kartaa labadaas. Okay, adoonan diff iyo waxba gelinayn laakiin saan oo kale markaad tiraadid ayadana waa la ogol yahay means yani parent uu yahay. Okay, parent uu yahay macnaha da inta tago ayraado compile gray ايش امرك محليه context why كلي reactive fragments unexpected token كلي انت waxaan u maleynayaa in iga maqan yihiin magaciisi library kale to isticmaalaya in meelaan ka maqan yihiin filaya marka laakiin fragmentigan uu jiraa. Okay, fragmentigan hadaan tag u baahnayn waad isticmaali kartaa kulli haduu yani hadaad caadi u soo dejisid magaciisi reactiga uu ku shaqeynaa hadaad tijaabisid adiga computerkaaga. Okay, marka hadda aniga waxaan filayaa in library inta waxyaabo badan aan diliiday si waxyaabo badan oo revision iska diliidaan u baahnayn testing iyo waxyaabo kale oo fara badan marka waa iska fududeynaya macnaha. Okay, marka fragmentigan caadiga uu jira hadaad doontana waxaad dhigi kartaa reactive.fragments kaas caadigan u yeeri karnaa. Okay, halkaan aan soo qaado paste save dynamic start grade sidaan waa jirta macnaha laakiin waa isku mid fragmentigan oo sidaan u qortid inaad ka tagtid oo aad baalka labada magaciisi ayadoo bannaan aad samaysidna waa isu mid labadaas. Okay, marka qodobkaas waa JSX-ka waxaan dhaanay muxuu ahaaye ilaahay kuma samadiiday waxaan dhaanay markaad u baahan tahay inaad variable ama function aad u yeertid waxaad ku qasbantahay inaad isticmaasho calibrations. sidoo kale ilaahay kuma samadiiday muxuu ahaaye sidoo kale waxaan dhaanay laba jelly ma celin kartid ilaa aad fragment gudihiisa aad dhigtid ama parent inuu jiro simply. Okay, hadaadan parent u baahnayn ama diff faaruq hadaadan u baahnayn ama aadan u baahnayn wax kaleetaba waxaad isticmaali kartaa ama fragmentingan react fragmentina qortay ama iyadoo bannaan labadaba ku furanta. ana daltaan file badan ay ka maqan waa laga yaabaa filealkaas inay wax uun la qabanayeen marka qodobkaas waa la fahanteena rajayna labadaas qodob. Okay, labadaas qodob markaa hayso hal qodob aan rabaa inaan marka raaciyo. qodobka aan raba inaan raaciyo waxay tahay taggan hadirtaan self closing tag waa mid anaga sameeyno waa sax sida image oo kaleeto iyo kuwa kale oo fara badan ay jiraan oo HTML kameen image iyo yaa kale self closing tag ah I don't know laakiin waa jiraan kuwa kale inay jiraan qiyaasaya marka kan hadirtaan self closing tag waaye waxaan rabnaa inuu noqdo magaciisi taggan caadiga ah parent camal waxaan sameyn karnaa simple isaga un baan ku soo xiranaa laakiin se gudihiisa halkan aan keenno bal waxa baan keeninaa halkan waxaan keennaa hedge one kaba soo qabo hello kelimada noocaas oo kale aan keenno. Okay, marka ama hello JSX. Okay, marka halkan aan tagayaa aan compile gareeyo. Okay, inta fiiri marka ma keenayo somaa helowgii aan rabna meesha lama keeno sax promisaan u baahan yahay ma imaanayo somaa marka wuxuu u baahan yahay hal shay halka shay u baahan yahay waxay tahay waxay yiraahdaan marka waxa imaanayo probes waxay yiraahdaan halkan ku soo geli doonaa sheekada probes wax kale ma ahan waa taqaanaa horta meeshan function anu yaala sax sida caadiga hadda iska ignore gareejiyay iska function anu yaala sax
function markii wax loo baas gareynayo halkan horta waa inuu ku sitaa attributes. Okay, probes wax kala maahan waa properties. Okay, properties marka meesha marka waa inuu ku sitaa parameters soo ma function si wax loogu soo shubo soo ma صح marka niyada mid ku hay react function walba oo tag qaata oo tag ahaan loogu yeero JSX ahaan loogu yeero wuxuu qaadan doonaa halkan parameter waxa data waxa halkan looga soo shubi doonaa probes yiraahdaan objective probes yiraahdaan lagu soo shubi doonaa. Okay, meesha marka objective simple halkan loo soo baas gareyn doonaa marka halkan daaynaado object wal objectigan aan fiirino inta waxa leena log objectigan latus objectigan kulli cidii halkan ka isticmaalayso iyo ku soo shubi doonto objectigan maxaa ku jira marka. Okay, wala markan tago then restart. Okay, kan saas ku yimid halkan aan furno marka inta markaan furno objectiga waa kana soo aan iska ignore garay warningkan laakiin objectiga halkan yaalo soo objectiga aan furno marka maxaa ku dhex jiro property hal value hal property ku jira oo ah child soo children macna children ka marka wuxuu ka dhigan yahay macnaha wuxuu ka dhigan yahay wax kale ma aan waxaan datadan loo soo baas garay ka dhigantahay marka halkan aan tagno waxa leenahay objectigan harna objectigaas inaan ka soo akhrino wax ku dhex jiro. Okay, inaan halkan ku soo daawacnaa rabno maxaa sameeynaa waxaan leenahay practice aan furana ilan variable wax ka dhex akhrino object dot children ilaa halkan maxaa yeelay children soo halkan marka children aan leenahay children. Okay, intaas markaan dhaano intaas ka remove garay save. Okay, inta demi aan restart about kan iska xir halkan marka maxay imaaday hello.jsx sama oo ah wixii halkan ugu soo baasireen jaildiga halkan saas uu ku keenay qodobkaas meelaysan kulay ayaamana inaad xoogaa ku soo feegarteen rajayna oo aad magaalada ka aragteen kulay marka sembir marka halkan maxaa loo soo baas garan doonaa objectiga loo soo baas garan doonaa objectigaas marka waxa magac oo caan uu ku yahay jiro oo la yiraahdo probes. Okay, marka hadartan children wuxuu ka qaadanayaa dhaxbartankaas wax walba halkan looga soo baas garay waa children. Okay, children halkaas lagu soo shubi doonaa wax walba halkan looga soo baas garay children attribute kaas lagu shubi doonaa. Okay, laakiin kuwa kale oo jiri karaan oo anaga aan samaysan karno waxaan samaysan karnaa kala soo qabo waxaan dhigi karnaa waxa u baasktaa sidoo kale to name u baas garay name ka u baas garanaa name kana rabaa inaan u baas garay marka ama inta kulli waa kala bedelaynaa the name waxaad ku shubtaa calibraces simple waa la socotaa soo ma jedin calibraces marka kanaan soo qaadaya intaan paste ku leeyahay. Okay, waayo variable aan rabaa inaan run gareeyo sadarteed calibration aan furto haddaan laakiin aan isticmaalayo string haddaan u baas gareyn rabo kaba soo qaad anoo variable kaas rabin inaan u baas gareeyo string haddaan u baas gareynayo laba shay baa isticmaali karaa calibration inaan furo keedana string waa dhex keeni karaa haddaan u baahana labadooda inaan iska reebo aan halkan waxaan rabo aan ku qori karaa. Okay, laakiin waxaan string ahayn waxay u baahan yihiin calibration in la furo calibration adoon furo calibrations waad furaysaa haddaad u baahan tahay waxaan string ahayn inaan meesha ku baas gareyso ha ahaato muxuu ahaaye true value ha ahaato boolean value araade ha ahaato muxuu ahaaye number ha ahaato object ha ahaato variable waxaasoo dhan waxay kaaga baahan yihiin inaad calibrations furto laakiin string uma baahna oo waxaad dhigi kartaa double code stringiga fur kartaa. Clear? marka halkan name kan u baas gareyn rabaa halkan waxaa leeyahay name then save marka intaas baas gareeyo intaan tagaya inta stop bal hal mar intaan sii qorto bal aan iraado log objectiga lagu soo baaso aan rabaa inaan arko console-kaan rabaa inaan ka fiiriyo then start. Okay,
halkaan marka console-kan tagaynaa object-yaa loo soo baasgareeyay waxaan iska ignore garay kolley waa arkayna kuwan laakiin halkaan object-yaa loo soo baasgareeyay object-gaa maxaa ku dhex jiro waxaa ku dhex jiro laba shay children oo ah meeshan caloosha uu ka qaato waxaan waa halkaan gudaha uu ka qaato soo ma iyo the name oo halkaan yaalla asagana waa kana soo ma the name maxaa ku dhex jiro function ku dhex jiro soo ma iftas function means function oo u baahan in la call gareeyo macnaha okay maadaama halkaan function usoo baasma soo marka functionkii uu si toos ugu soo baasay marka functionkaas aan u yeerno bal functionkaas magaciis name ma la dhaha mise the name haddaan inta joogno ya hello maxaan leenahay name may the name aan leenahay waayo halkaan waxaa la keenay property waxaa waaye the name aan la keenay soo marka halkaan waxaa leenahay the name then the name ayaan rangaraynayna marka hadda safe dhabo aan ka damiyo aan daaradna okay waa kana waxaan ku dhex qoray the name wax ku dhex qoran oo soo celin doono functionkaas